barasaabkii cusba ee loo soo magacaabay gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye ayaa maanta si rasmi ah xilkii uga la wareegay barasaabkii hore ee gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji xaflad ballaaran oo loo sameeyay xil wareejintan oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mas'uuliyiinta booliska maayirka degmada Burco Berbera xildhibaano cuqaal iyo dadweyne badan barasaabkii hore gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji ayaa isagu si qoto dheer leh uga warbixiyay waxqabadkiisii muddadii uu xilka hayay uu ka qabtay dhinacyada nabadgelyada caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada asaasiga ee gobolka Togdheer wuxuuna xusay Masar Xamarji inuu maamul daadajinta gaarsiiyay ilaa heer degmo barasaabkii hore gobolka Togdheer isagoo tilmaamaya waxqabadka dhaxalgalka ee uu gobolka Togdheer ka hirgeliyay laguna xasuusan doono muddadii uu xilka hayay ayaa waxa uu yiri waxaan caawa tilmaan taariikhi kaga tagayaa gobolka Togdheer nin walba wax buu sii suntadaa waxa ii sharaf iyo magaca in aan noqdo 13 barasaab baa jira barasaabkii ugu horeeyay ee buugga development regionkiisa gobolkiisa uu sameeyay wixii baahi Burco ay qabtay ee u baahan wax laga qabto buuggaasi idinku dhayin barasaabka cusub ee gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye ayaa isaguna ballan qaaday in muddada uu xilka hayo ka shaqayn doono horumarka gobolka Togdheer iyo isdhexgalka bulshada runtii Axmed Kamuute gobolka lagamana eriyin hase yeeshee wuu cudur daartay waxaan ka markhaati kacaya nin daayar oo firfircoon oo dadka ku dhex jira oo isku wad leh inuu ahaa reer Burco waxaan filayaa aniga maanta iskuma ka horeyso haddana warkayow iskuma yara Burco wax badan ku sii talax tagi maayo waa wada joognaa waa wada shaqayn doonaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cismaan Garood Soofe oo goobjoog ka xil wareejintan iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer Cabdi Muuse oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa ka mid ah hadaladoodii rabeenan ka hadlo waa barisaabkii hore gobolka waa nin firfircoon buu ahaa waxa uu qabtayna runta marka laga hadlo taariikhdeeda ay qortaa gudoomiyaha cusub isaga waxaan leeyahay isagana xil baa u yaala xilka u yaala waxa weeyaan isku wadidiina wada shaqayntiina sidii isagu idin kasban lahaa oo taageero idin ka raadin lahaa hawshan kulay barasaabka cusub inaan soo dhaweyno barasaabkii horena inaan si macsalaamayno saaxiibkay Axmed horaan u soo wada shaqaynay nasiib wanaag aniga waxay horta anigoo cusub iyo barasaabka cusub inaan sax qaadno maayirada degmada Burco iyo Berbera Maxamed Yuusuf Muraad iyo Cabdishakuur Cidin oo xafladaasi ka hadlay ayaa barasaabkii hore gobolka Togdheer Masar Xamarji ku amaanay muddadii uu xilka hayay waxqabadka dhabta ee uu ka hirgeliyay gobolka Togdheer sidoo kalena barasaabka cusub ugu duceeyay in Ilaahay u fududeeyo xilka culus ee uu la wareegay Jaamac Cabdilaahi Biin oo barasaab ka soo noqday gobolka Togdheer Sultaan Maxamed Jaamac Cabdirasaaq Shalumaray oo madaxa hay'adda shaqaalaha gobolka Togdheer maayir ku-xigeenkii hore ee degmada Burco Axmed Cabdi Falay iyo mas'uuliyiin kale oo halkaasi ka hadlay ayaa uga mahad celiyay barasaabkii hore mashaariicda kala duwan oo ka hirgeliyay gobolka isla markaana soo dhaweeyay barasaabka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Togdheer uguna baaqay bulshada gobolka Togdheer in ay la shaqeeyaan maamulka cusub gabagabadii xafladaasi ayaa barasaabkii hore gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji lagu guddoonsiiyay halkaasi shahaado sharaf barasaabkii hore gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji ayaa waxa uu xilka hayay 11 bilood isla markaana barasaabka cusub ee xilka la wareegay ayaa waxa uu noqonayaa barasaabkii afraad ee loo soo magacaabo gobolka Togdheer muddadii uu talada dalka hayay madaxweyne Axmed Maxamed Siiraanyo Kays Axmed Digaale on Cable TV Burco.